سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga sharafta leh meel kasta oo joogtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxaan idiin weydiinayaa caafimaad sidaad xagga saraba ku aragtaan barnaamijkani waa barnaamijkii ahaa weye wie kann ich in Deutschland leben sidee ayaan jarmalka aan ugu noolaan karaa oo aan ugu talagalnay maalin walba ama mar walba aan kusoo qaadano waxyaabaha aanu isdhaahno ummaddu way u baahan tahay sida luuqadda dadka waxbartay dadka magaranaysa ay wax qabsaday iyo dadka talooyinka siinaya dadka walaalaha magaranaysa iminka jarmalka ku cusub ama doonaya inay wax qabsadaan inta badan waxaan markii hore focuska aanu saari jirnay magaranaysa dadka muddada 10 sano gudahood jooga wadanka jarmalka laakiin iminka insha Allah bidnillah alkareem waanu ballaarin doonaa oo waxaanu soo qaadan doonaa xitaa hadii Ilaahay ka raali noqdo dadkii waqtigii hore soo galay jarmalka iyadoo aanu ka wareysan doono isbarbardhigga labada nololeed noloshan iminka cusub iyo noloshii hore ee wadanka jarmalka sidoo ahaan jiray talooyin badanna ma garanaysa ina siin doon hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo inta kadib caawa waxa marti inoo ah walaalkeen Colaad oo qoray sidaad wada ogsoontihiinba buugii lagu qoray afka Soomaaliga jarmalka ma garanaysa iyo jarmalka buugaas oo in badan dad badan ay sugayeen su'aalo aad iyo aad u fara badanna sida runta ana laga soo weydiiyay maadaama su'aalo aad fara badanna laga soo weydiiyay waxaan jeclaysanay barnaamijka uu jeclaystay wie kann ich in Deutschland leben inuu walaalkii la xiriiro oo waraysi toos ah aanu ka qaadno oo ummadda oo dhan ma garanaysa ay wixii ay u baahdaan ay weydiiyaan sidaa darteed walaalka cilad ayaa xagga mobilka kaga timid marka waa suurtoob weyday inuu live-ka magaranaysa soo galno isagoo magaranaysa iminka inoogu jira khadka si toos ah khadka telefoonka inoogu jira marka waraysigii ayaan hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu bilaabi doonaa laakiin dhamaantiin waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijka aad sii share gareysaan oo walaalaha kale la sii wadaagtaan si ay uga bogtaan iyaguna buugaas iyo meeshii laga heli doono waa chance weeye cid walba aan helin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalka inoo soo dhaxmariyay Colaad walaalaha iminka cusub ee baranaya af jarmalka ma garanaysa ay ku dhibaataysan yihiin af jarmalka in uu fududeeyay waa chance Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina sii weyn dad badan oo ka warhaynin ayaa jira marka laakiin hadii aad ka qayb qaadataan way gaari doontaa insha Allah fariintan inta kadib walaalahana salaamay waan salaaminaa wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh ayaan leenahay waxaan ku soo dhaweyn doonaa barnaamijka Colaad
colaadow waxaad khadka telefoonka kaga jirtaa barnaamijkii ahaa weekend ish in Deutschland Leben walaalo badanna way ku dhageysanayaan waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku salaaminaa ما شاء الله لما أنت بواحد إلي مرة بعد مرة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة أبيك وعامل الشيخ عبد الغني فوش ما شاء الله أبوكو سلامية يدمان بالشوية الصومالية مرة خاصة كفران بيج كان خاصة مرة برنامج كان أبو قيمها بدن أبوكو اللي سلامية وأندوه إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سؤالي هي بالله بدنا ولا المحمد الدين الله سبحانه وتعالى كره النقطة annaguna waanu kaaga mahad celinaynaa maadaama ood barnaamijkan aad ka qayb qaadanayso su'aasha horta ugu horeysa aan doonayno inaan ku weydiino bal magacaagu saddexan ما شاء الله إنك سو كل يترمل كلام مجعول لي قارئ هذا كل مجعي الصحبة وحوي أبوه مجعي وصدقها هذا سيرك وحوي وعلاد محمد مهدي ما شاء الله ما شاء الله علاد محمد مهدي labada magac ma waxaad u jeedaa magaca aabaha iyo magaca ma garanaysaa magaca kaliya mise labadii magac la sheegi jiray way kale kula yara kaftame ma waxa weyn faraha badan jarmalku inta faraha badan waxay qoraan oo kaliya magaca hore markii qaabkan waxa laga yaabaa in qofka markaas hadii qofku qorto saddex magac imiga aniga magacaygu waa colaad magacii aabana waa maxamed magacii awwala waa mahdi marka mahdi bay suureen kaliya waxay qoraan oo kaliya colaad maxamed marka ay qoraan ما شاء الله ما شاء الله مستر علاad maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay khayr allah ku siiyo gobolkeed ka degan tahay wadanka Jarmalka waxaan ka deganahay gobolka loo yaqaano Schleswig-Holstein oo markaas xadka Denmark buu markaa waxooga adigu kulli xadka Denmark ma deganahay kulli marka la eego caasimada markaas gobolkeeduna waxa weeye Kiel baa loo yaqaanaa marka waa dhinaca Hamburg weeye Soomaha Hamburg kulli saacadan u jirnaa waxooga yar ilaa saacadan sida inay tahay ما شاء الله ما شاء الله adiga iyo walaalaha Hamburg ku nool iyo gobolka aad sheegtaba ku nool aad iyo aad baan idin salaameynaa waan rajeynaynaa qaarkood inay daawan doonaan qaar kalena daawan doonaan muddo intee lag baad joogtay colaada wadanka Jarmalka runtii waxa weeye inta faraha badan Jarmalka xilligan soo galay runtii hadda waxa ka soo wareegay filayaa muddo 5 sano meel ay gaaraysaa filayaa oo waxa weeye adigu kulli 5 sano meelahaas gaaraysaa 5 sanadood baad joogtaa ilaahayna wuxuu ku waafajiyay inaad buug af Soomaali iyo Jarmal isku jira aad qorto ما شاء الله كل buugan waxa weeye runtii markii ugu horeysay Jarmalka soo galay inta faraha badan dibka ugu badan ee haysta Soomaalida markaan arkay oo waliba aniga qaatay fursaday wuxuu ahaa dawli ma jirin buug sax oo jaamacad kala duwan haduu yahay markaasi adigu buug tusaya qofka Soomaaliga si radigeerna u baraya markaasi qaybaha ugu muhiimsan ee qofka awood u siinaya inuu qofku luqadan uu furihiga heli karo waan gartay marka maxaa la oran karaa maxaa kugu kalifay inaad adigoo muddada saa u yar joogay ma garanaysaa in inta wadankii ku cusubna iska 5 sano marka la yiraahdo waa iska nooc min cusub weeye luqad inaad yani buugga Soomaali iyo af Jarmal isugu jirta aad qortid maxaa kugu kalifay waa la oran karaa runtii waxay u kalifay marka ugu horeysa waxa weeye waa baahida ugu ballaaran markaasi aan arkay waliba markaasi macnaheedu ilaa imika taagan sababtuna waxa weeye markii ugu horeysay wadanka soo galay anigu waxaan ku wanaagsanaa oo macnaheedu ma sha Allah waxa weeye aad ugu fiicnaa waxa weeye xaga computerka iyo xisaabaadka iyo English luqadda Englishka kadib marka aniga runtii dib baan inuu haysan oo waxa weeye faraha badan haddii macnaheedu markii aan Soomaali ku waayay oo khaasatan wax luqadda Jarmalka waa luqad runtii ka yar duwan xitaa English hadii xitaa la eego systemka u dhisan tahay hadii yahay grammatiga haduu yahay wax kastoo markaasi systemka u baahan tahay luqadda marka waxaan arkay markaasi inay jirin haba yaraatay wax buuga oo qofka maanta luqadda Englishka aan garanay laakiin luqadda afkii hooyo Soomaaliga u yaqaana aanu helay meel uu markaasi ka tixraaco iyo markaasi jaranjaro uu markaasi luqadii ku fahmi karo khaasatan buugaagda afka Jarmalka oo Soomaali lagu sharaxaya markaas markay u kaliftay maadaama anigii markaasi waxa weeye aan arkay markaasi in baahida ballan ay jirto oo salahan oo kale imika buugaagda jiray kelmadaha ah oo waxa weeye buugaagta kelmadaha runtii boqolkiiba 9 qofku mar haddii uu haysanba furayaashu ku fura lahaa luqadda kelmaduhu beerato waxa uu tariyaa ma jirto maxaa yeelay san ogsoonahay waxa weeye qofku marka ugu horeysa inuu barto
معني شرنترada koowaad dhawaaqa macni waxa weey alphabetka kadibna uu qofku markaas waxa weey marka dambana talaabo uu barto inta yar markaas maalmeedka ugu horeeya bilowga kadibna uu qofku barto habku isku xirayo jumladii ka kooban subject verb waxa loo yaqaan predicate object macnaha hadda uu talabo si qaysanaysaa laakiin jumladii fara badan English ka hadii xitaa laga xitaa ku bilaamayaan oo jaranjarada iyo subjectiga iyo qofka macnaheedu cid uu mawduuc ku socdo hadii qofka uu iska hadlayo oo tilmaamayo hadii qofku leeyahay waxaan doonaya markasta macnaheedu isaga noqonaya subjectiga oo markaasi wixii isagu ku socday ficilka xarakaadka uu leeyahay marka macnaheedu ma jirin waxa ay raatay buugo marka ka caawiya taas marka ay ku listay markaasi bulshadu jeeyo waan gartay khayr Allah ku siiyo marka cid baa kugu dhalisay oo ku tiri maadaama aad computerka ku fiican tahay adigu nin dadaalana aad tahay dadaal baa kugu dhex jira hawsha qabo mise adigu baa maskaxdaada ka keenay والله horta waxa weey markii ugu horeysay waxa weey fikirkan ay keentay mid jiri laakiin anigu baa ay jiri colaado maadaama Englishkina ku fiican tahay computerkina ku fiican tahay luqadina baratay oo maanta waxa weey ma sha Allah waxa weey heer loo banaa taagan tahay umadaadi markaas waxa weey computerkina waa ku fiican tahay waxa weey doosishka uu buuxi saasa markaas waxa weey wuxuu hadareen anigu la sheego ma sha Allah khayr Allah ku siiyo colaad buuga magacii buuga waxa loo yaqaanaa Deutsch lernen ohne Lehrer oo macnihiisu yahay macallin ku baro afka Jarmalka marka macnihiisu waxa weeyaan afka Jarmalka ku baro macallin la'aan iyadoo cidina ku barayn iyadoo habeeraatay cidina ku barayn qof isoo isbarayo marka weeyaan buugan oo waxa weey buug aad u ballaaran waxa weey ma sha Allah saas waxa weey wuxuu ka kooban yahay grammaticalki oo waxa ku jira soo kale 9 wada sheekaysiga ku jiro af Soomaaliga ugu wata waxaana uu fara badan yahay grammatical fara badan hadii ficiladii istabka isku bedelayaan markuu yahay present markuu yahay preteritum markuu yahay perfect markuu yahay future aim iyo tusalayaasha systemku qofku u dhisayo markay tahay jumlada present habku uga dhigi lahaa preteritum oo macnaha wax tagay oo soo dhaafay habku uga dhigi lahaa perfect iyo soo laftiisa tilmaamayo wax la soo dhaafay systemka jumladu u dhismayso ficilku si isku bedelayo jumlada marka ay macnaheedu habka isku bedelayaan wax kasto markaas Soomaali oo aan si fiican ugu sharaxayo Soomaali ugu sharaxan sharaxada qofka dib fahmo hadhow tusaalayaasha si fiican buu qofku bedeli karaa luqadii waan gartay marka waxaad leedahay qofkii af Soomaaliga ba yaqaano uma baahna inuu macallin u qabsado fahansiyo waxan kaligiiba isfahansiin kara baad marka hadalku saas ku soo gaboobaya Soomaha ما شاء الله كل جبت فانسين كلام حيل شرحات يوم إيش بكون طيب marka colaada oo buugan marka aad sameeynaysa aad qoraysay yaa ka caawiyay oo gacan ka geystay mise adiga kaliya un baa ismaamulay oo hawshan watay horta runtii waxa weey buugan runtii dhalinyaro fara badan kulli lama soo koobi karo iyagu markaas waxa weey dhiirigelin siinay way jiraan qaasatan waxa weey lama soo koobi karo waxa weey qofka ugu horeeya xaaskayga yahay labaad waxa weey markaas maxay saaxiibkii dirso isaguna markaas kaalin muhiim ah ka soo qaatay laakiin waxa jira isaguna markaas oday professoro markaas waxa weey jaamacada marka qaybta waxa weey luqadda dooshka ka dhigo markaas uu Jarmal ah oo dhalashiisa Jarmal tahay oo wadda ka dhashay oo isagu markaa buuga kulba waxaan qori jiray markaan kulba dhameeyo qaybtii aan markaan dhameeyaan qoray kadibna isagu jeegareeyo oo markaas kulley waxaan ahay qof waddankii aan dhalan laakiin wixii khalad ku jira ka saaray moogto isagu markaas ay garab taagnayo markaan mawduuca dhameeyaba waxa weey isaga markaas كان اللي بحالك قاطين ومركز بوجي لا شجريه وهذا كان لسه جالسيه وواحد على وجه خالد كجري وكساره marka qaybta turxaan bixinta ayuu ka qaabilsanaa isagu qaybta turxaan bixinta uu qaabilsanaa soo kan la qayb dhiirgelin uu leeyahay runtii waxa weey waa chance wanaagsan macnihii in la helo qof Soomaaliyo bulshadiisa markaas waxa weey isagoona haba yaraatee aan dhiirgelin kala haysan oo kaysa Soomaaliya si markaas barnaamijka uu ka soo baxo waxaad ii sheegtay buugga in shirkadii kala wareegtay imikana aadan adigu gacanta ku haynin shirkadaas oo buugaagta daabacada oo buugaagtana iibisa marka qaabkeed adigii shirkadu isku hesheen ama aad u wada xidhiidheen ما شاء الله horta markii ugu horeysay shirkadkan hadii oo markaas waxa weey daabacada buug yaro inaad aragteen mooyaan buug yaro gabadha buluuga Soomaaliya oo kelmada shirkadii markaan raadiyay runtii waan sahli weeyay laakiin shirkadan imika waxa weey qayb marka waa shirkad
weyn oo jarmalka macnihii muddo wax ka shaqeynaysay imika dhowr iyo 10 sano ka shaqeynaysay marka internetka kala xiriiray marka aan u qoray adigu markaasi natiijo farbaan ku saabsan inaan buuga qoray una baahanay markaasi inaan buuga aan daabaco markaasina ma sha Allah marka waxa ii fududeeyay odayga markaasi ugu jarmalka ayaa marka noo bixiyay ma sha Allah oo isagu markaasi suurta geliyay in buugaas heerka soo gaaro imikadana ma sha Allah uu maanta uu noqdo buug dile qof kasta uu heli karayo ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله marka imika shirkadda kala wareegtay shirkadana suuqyada soo gelisay saad ii sheegtay maanta marka imika suuqyada uu ku jiraa Soomaha waa la soo daabacay buugiyo waa diyaar imika buug waa diyaar laakiin waxa weey jaranjarada ugu horeysay marka hore imika qaybta shirkadda website ay ku leedahay ay markaasi khaasatan barnaamij jiro marka adigu buug shabo ay ku leedahay shirkaddu ay soo gelisay xalay toole kadib marka message badan soo diray waxay raadeen usbuucan inta soo socda insha Allah maanta waa jimcaha laakiin usbuuca dambe isniinta ilaa iyo jimcaha dambe waxa weey wuxuu soo gali doonaa markaasi dhammaan meel kasta book shop ah iyo qofku keeni doonaa uu markaasi ka dalban doonaa soo kale qaybta Amazon markaasi internetka iyada qaybtana online kana waxa weey qofku insha Allah usbuuca soo socda iyo qof kasta ka dalban doonaa wixii ka dambeeyay qof kasta meesha uu dhow keeni doonaa hadii la helaado okay marka waxaan u fahmay imika website kooda ku soo daabaceen buugiyo diyaar gareysan waadigi sawirkiisa ay soo diray isbuuca soo socda gudihiisana waxa weeye waxa lagu faafinayaa Amazon-ka iyo meel kasta oo buug lagu iibinayo wadanka Jarmalka soo sida maaha ma sha Allah taas weeyaan sax ma sha Allah colaadow dadka qaar baan soo weydiinayay buuga xagee laga heli karaa hadhow marka qofku hadhow marka buuga uu suuqa soo galo halkeebu ka heli karaa runtii waxa weey su'aasha aniga oo jar weydiiyay shirkadda waxay u raadeen meel allaaliyo meel kasta oo buugaagta lagu iibiyo qofku uu ka dalban karaa muhiimadu waxa weey lambarka ESPN-ka lambarka buuga u khaaska lambarkaas uu qofku la tagayaa macnaheedu markaasi bookshop-ka iyaga markaasi lambarkaas bay gelinayaan isla markaaba iyaga u dalbayaan oo markaa u sheegaya markaa muddada markaa uu imanayo laakiin lama oran karo meesha waa meel kasta oo bookshop okay ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله marka qofka hadii uu xitaa lambarka haysan buuga sawirkiisa waa kan imika aan meel walba ku shaacinay buuga uu qaadi karaa buug shopka uu geyn karaa ama meelaha buug handlunka uu oran karaa Soomaha buugan aan u baahanahay ما شاء الله على magaca buuga uu qaadi karaa kaliya sawirka buuga inta uu la tagi karaa inta xitaa uu soo helaya qasab insha Allah dilaado okay ما شاء الله تبارك الله mar labaad walaalaha imika dib kaga soo biiray waxa weey waxaad la socotaan barnaamijkii ahaa weekend ish in Deutschland leben sideebaan Jarmalka ugu noolaan karaa oo mar walba aan ku soo qaadano talooyin iyo warbixino iyo dad ma garanaysaa iyagu wax bartay ama sida colaad oo kale buugaag qoray aan ku soo qorno buugan imka laga hadlayaana wuxuu ku saabsan yahay afka Jarmalka iyo afka Soomaaliga buug isugu turjumayo weeye oo aad isbari karto macallin la'aan adigu aadan cidna u baahnayn ayuu ku saabsan yahay colaado qiimaha buuga bal nooga sheekay wax yar imisa buuga la siinaya okay ma sha Allah horta qiimaha buuga intaanan xoga aan qiimaha ma qoraan sheegin buugu wuxuu kooban yahay AIS ilaa AIS5 marka waa laba buuga la isku daray wala buug weyn waxa weey 276 page ah oo waliba macnaheedu buugta waa weyn ayuu markaa leeyahay marka qiimihiisu hadda uu marayo waxa weey 930 euro weeyaan 930 euro marka waa laba model weey modelka AIS-ki iyo modelka AIS5 weey oo isku jira waka ma sha Allah wala buuga marka isku jira weeyaan sax marka walaalaha qaar baa waxay soo weydiinayeen ilaa maanta ay lahaayeen waxaad moodaa buug xogaa qiimihiisu inay xogaa yara qaali ay tahay oo buugaagta kale uu ka qaalisan yahay af Jarmalka kaliya ku qoran marka qaalinimada maxaa sababay aad maranaysaa horta marka ugu horeysay su'aasha xitaa aniga weydiiyay markii ugu horeysay sababtoo shirkadda xitaa waxaan weydiiyay waa maxay sababta keentay buugan hadhow toole qiimihiisu inuu heer ka gaaro waxay ugu yiraahdeen horta lambar 1 shirkadaha kale buugaagta soo daabacay iyagu shirkadaha iska leeyihiin isla markaana waxay daabacaan intaasoo boqol oo kun oo buug bay daabacaan laakiin waxa weey inaga dhan Soomaaliyeed arintii ma awoodin inaan daabacno hal mar intaasoo boqol oo buug taas waxay keenaysaa markaasi qofku hadii uu daabacdo tiro yar oo ilaa dhowr boqol oo buug iyo hadii uu daabacdo qofku 20 kun oo buug way kala qiimo jaban yihiin oo hadda uu 20 kun oo buug shirkadiina dhaqaale fiican bay ka faa'iideysaa
adigina qiimo jaban baa lagu sameynaya marka anigii marka way suurtoobi weyday in la rabto kuna buug aan dalbado marka taas markaasi qiimuhu qaali ku noqday sababtoo ah haddii aan 20,000 aan daabici lahaa buugana ku noqon lahaa 26 euro meelaha soo noqon lahaa laakiin waxay noqotay hadda macnihii qiimihii lagu daabacay uu farabadan yahay buwaasina way yaryihiin tiradaan daabacay oo kolba in lasoo daabaco tira cusub bay noqotay taasaa markaa keenaysa markaasi inuu buugu qaali ku noqdo marka anigu qudhaydu imika maan fahansanay laakiin imika markaad sharaxday aad iyo aad baan u fahmay maadaama buuggan laba buug oo isku jira yahay af Jarmal kaliya oo ahayn oo Soomaalina ku qoran yahay anigu waxaan aaminsanahay 29 euro inuu istaahil ku yahay waliba ka badan buu istaahilaa sababtoo ah buugga af Jarmal kaliya markuu qoran yahay oo hal buug uu yahay waa 20 euro ilaa iyo ma garanaysaa adigu wax meelaha qaar 17 baa lagu helaa laakiin buugga markaad soo iibsatid af Jarmal kaliya ku qoran waxaad u baahanaysaa haddana macallin oo waqti badan ka qaadanaya iyo iskuul inaad la tagtid laakiin kani 2 euro kaliya uu dheer yahay waana laba buug oo isku jira marka 30 euro 40 euro oo mid la oo bila macallin aad isbaraysid gurigaaga aad la fadhiisanaysid waxaan aaminsanahay inuu inka badan inta ka badan uu istaahilo laakiin waxaan dadka Soomaalidana khaasatan aan kula talin lahaa walaalkaas dhalinyarada ah 5 sano joogay iskii isku ma garanaysaa xil qaabay buug dhan inoo daabacay inaynaan ma garanaysaa niyadda inay ka jabin aynu taageerno oo aynu iibsano haddii buugga la iibsado oo dad badan iibsadaan waxa way suuq buu yeelanayaa oo ma garanaysaa buuggii sida uu sheegay rakhis buu noqonayaa laakiin inaga inagu xiran tahay colaado buugta af Jarmalku inta badan waxay wataan cajalada iyo CD kan ma wata CD mise Soomaaliga kaliya uu ku koobsaday ما شاء الله وسؤال آدي المهم رنتي سؤالها هذا رنتي وانش علينا أكلها رأيه لكن هو مهم سنة ما شتى لو حوي إنك إنك بدنا قراءة صوص عرب واسط شرملكا وهو هلا ديرجني فربنا حتى كذا حتى أروح حتى بالشو مركز التغيير أو يعني بوجا وصوص عربي مدة وصوص عربي حتى واحد قاطع 6 سنة 5 سنة قاطع تغيير أو عشرة حتى ودوبة حتى قلقتي وكينا وخسوب بهاي وكينا لكن Soomaalidu أنا ما جرتو معني Soomaali كلا تغيير إنه يجري مويا إنت تاسع كنتي maadaama aanay jirin cid macni maanta taageero badan u geysatoo maanta qaybtii casradii hadday noqoto duubitaankii tirada waxa way waa loo baahan yahay buugii casrina raaciyo waa kuwa casradiyo dee macni dhiirigelin iyo masaafila timaada haddaynay jirin runtii way u adkaatay keligii inaan buuxin karo casradii inaan duubi karo buugii aan qori karo runtii waxay noqotay mas-uuliyad aada u ballaaran buuggan laftigiisa 2 sano iyo xoogaa buu socday marka inta la qorayo inta 2 sano haddana casradii la raacin karo waa dareemaysaa culayska leedahay oo qofku aan haysan cid kale markaasi dee taage ama garab gasho hawsha la wada aan jirin waxaan u malaynayaa buugii adigoo soo saaray oo soo daabacay ayaabaan arkay dad badan oo qoraallo badan oo wanaagsaneen soo qorayay ama waxyaabo badan oo wanaagsaneen ma garanaysaa noo soo tabinayay adigoo qoraya oo buugii ku gada jiro oo weli soo saarin oo fikirkii kugu jira waxaan malayn karaa dhib aad iyo aad u badan inaad ka martay bal hal iyo mid haddaad nooga taabatid intaad buugga qoraysay waxyaabihii kugu adkaa ee kaa soo maray ما شاء الله وحوي هرتا دبك وقبضا سومري وحوي إنما أبو ده كل مشي كرم جهان تدا لكن أحس عنه قرر يسكره إنه رامر كذا بو قاصن دون هنا قرر يا واحد يشوف المحاق دبي سومالي كلامني كسوي استحملنا يا يو ورشيش بحر يا يو لك سواء في ديارنا يا أبو شغل كثير إن هذا محاق واري خلاص بدش فلوس عاري سومالي ده وحوي كله بدو يقبض خلاص استحمله والله استقرصه buuggan cid ka iibsanaysa ma jirto anaga waxaan ugu jawaab buugga haddaan lacag doonayo runtii waxay waqti intaa la iman jireen waxaan u baahanay kaliya ka Soomaaliya ka hesho markaasi meel ay markaasi qofka cusub soo gala iyo qofkii luqadda ay ku wada taagan yahay markaasi cid macni buug ka caawin karo oo markaasi runtii markii ugu horeysay waxaan arkay runtii niyad fara badan iyo markaasi Soomaalidu aan ogolayn qof horumar sameynayo oo bulshadiisana la jecel horumar kaliya waxay isbadanaa dadkeen waxay u badan yihiin inay madaxa kaga istaagaan qofkii doonaya inuu bulshada u qabto ما شاء الله waan fahmay marka anu waxaan ka dalban lahaa iska cafi dadkaas oo ilaahay dartii ku daa maadaama aad gaadhay hiigsigii aad hiigsanaysay sida runta ana nin adag baa tahay oo qof kaligii isagu buug qorayo oo cid ku caawisa ayna jirin oo
cid daba taagan jirin oo cid fangaranaysa ayna jirin laakiin ummadii uu ka dhashana ay magaranaysa niyad jabinayaan buuggiina kan gu gaadhay ma ku tala jirtaa inaad buugaa kale oo kale qortid oo kasii sareeya sida B-Einstein oo kale ها ما شاء الله هذا وحوي هذا شركة لفتجيد وحوي وحيا لها البوك يا لبي أنسا أو دراماتيكا أو مركز سوق ما شاء الله وحوي مركز بي أنس كون كلا ساريو أنت فرحة بدن بي أنس كمركز الشيء ما عجود تذكر حوي هيستعمل بي أنس في كوبي لكن بي أنس كو باللاري هاي وهذا نقطة سيستم كيلو كوري وراقا يوم مركز يقول دراماتيكا كوبيو تيجوني الله في كلا ساريو مركز ما شاء الله marka waxaan ka dhigay laba buug midna hadda uu socdaa sitankiisu uu socdaa midna uu dhamaanayo shirkadu ku jira waxa laga yaabaa inuu soo baxo bisha saddexaad ilaa bisha afraad uu soo baxaya hadii la yiraahdo mid kalena weli uu socdaa hawshiisa iyo wax yar baa horeeya hadii la yiraahdo marka kuwaasi ma ka duwan yihiin kuwan maadaama oo imika buug kalena aad qortay oo waxyaabo badan aad aragtay wax marka hore aad islahayd way adag yihiin aad ogaatay imika inaan adkeen waxaad islahayd marka hore lama qaban karo imika aad ogaatay in la qaban karo ma ka duwan yahay oo CD iyo alaab iyo wax ma u rajaynaysaa inaad kusoo darto haddii ilaahay ka raali noqdo buwaagtan maadaama yihiin grammatical inta faraha badan buwaagta grammaticalku ma laha CD ma laha marka waxa weeye keliya laakiin waxay leeyihiin sharaxaado fara badan iyo waxay leeyihiin runtii iyo color buu leeyahay macni fartii Soomaaliga waa madow fartii Dutchka waa blue weeyaan kan imika buuga waa bila color laakiin waxa weeye si fiican marka kala saaray Soomaaliga waa far yar Dutchka waa far waaweyn marka laakiin buug dambe soo bixi doona grammaticalka ayta kala ma sha Allah ayuu bay macnihiisa si fiican qofku u arki doona waxa weeye wuxuuna si fiican yahay grammaticalkiiba si fiican loo sii gudagelaya qaadada BNC habku qofku baran lahaa loo qorayo waraaqaha oo grammaticalka ka caawinaya qofka inuu waraaqo qoro inuu qofku macnihii kala fahmo waxa weeye markaas grammaticalka waaweyn ee u suurta gelinaya la B5 la C-Einstein qofku inuu markaas luqadiisu ay markaas waxa weeye ay adkaan karto luqad isku haleyn kara noqon karto colaada wanagu waan ku taageeraynaa waa ku soo duceynaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala adigoo kale uu ku badiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadankeena iyo wadanka magaranaysa Yurub iyo khaasatan Jarmalka dadkana uu sida adigu aad wax u faantay si kasi wanaagsan Ilaahay uu wax u faansiyo dadka Soomaalida intooda badan ma aha laakiin dadka qaar waxa jirta il kaliya leeyihiin ishaana inta xunun bay ku arkaan ma laga yaabaa hadhow dhaleecayn inay kugu timaado buuga cusub ay ku oranayaan war afka Soomaaliga maxaad ugu qori weyday farta buluuga farta madow kala doontay in lagu yiraahdo hadhow ma laga yaabaa way ma jirtaa waxa weeye markii ugu horeysay buug kasta markaan sameeyo marka hore aniga daawacdo hal buug baan ka sameeyaa anigii waxa wadaagna marka professorkan Jarmalka waan waxooga tijaabina marka odaygan Jarmalka su'aashay weydiiyay ugu raacado waa maxay sababta macnaheedu uga dhigtay ugu dhigay Soomaaliga farta madow Dutchkan awrtay farta buluuga marka waxaan ku uri markasta waxaan ku uri labada farbaan ku uri qodobkii laga dhigo waa sumidkii laakiin waxa weey aniga jeclaystay buluugu maadaama uu yahay khad si fiican u muuqanayo oo intuu si fiican u qabanayaan inaan ka dhigo Soomaaliga oo qofka saaba badanaa dadka waxay badiyeen wadanka dad waaweyn oo wadanka xil dambe soo galay oo runtii xagga macnaheedu waxa weey haday u baahdaan xitaa inay qofku uu akhriyo ama farti kala saaro farta madowga badanaa waa farta kaliya ee qofku aanu markaas macnaheedu wax qalad aanu ku yimaanayn markaas waxa weeye xuruftii marka farta buluugana waxa ugu talagalay oo ku leeyahay noqoto fartii Jarmalka oo qofku fahmaya tay Jarmalki kana Soomaaliga si kastana aanu dhigo waxaan ku urjeeyo Jarmalka waa cadaan Soomaaliga midowga ku daawaysay noolti xaga tan kastana ما شاء الله خير الله كسيو waxaad moodaa guntii gabagabadii inaan ku soo dhawaanay su'aalihii dabcan naloo soo gudbiyay iyo kuwii aan rabay inaan ku weydiiyo aan ku weydiinay barnaamijka aad ku jirta imika colaada waxa weeye weekend ish in Deutschland Leben oo imika barnaamijkuna waa barnaamij cusub xalaqadana waa xalaqadii saddexaad weeye ayaad nasiib u yeelatay laba xalaqadood oo kaliya ayaa ka horeeyay tan tii saddexaad weeye oo nasiib u yeelatay waan wadi doonaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo iyadoo aan ku soo qaadi doono barnaamijyo xiiso leh oo kala dambeeya oo iyo idinku kuwaad naga socodsataan haddaad tiraahdaan ma garanaysaa dhalinyarada Jarmalka ku nool ama dadka Jarmalka ku nool arintaas xooga saara waraysi baan uga baahanahay haddii aad naga soo dalbataan iyadana insha Allah waanu hirgelin doonaa colaado inta Jarmalka joogtay maxaa kuugu dhibadnaa ama kuugu la yaabka badnaa
runtii waxay ugu la yaabka badnaa waxa weeye markii ugu horeysay markaasi waxa weeye aan isku dayay markaasi waxa weeye inaan buugan qoro waxay waa markii ugu horeysay markaas systemka ugu horey wadanka Jarmalka wax kastaba waxa weeye copyright bay leeyihiin wax kastaba copyright bay leeyihiin xuquuq bay leeyihiin qof kasta markuu buug qorayo runtii waxa weeye waa la tijaabiyaa oo buug kale ka soo koobi garay iyo waxaas la eega waa markii ugu darnay markaasi muddo 4 bilood ilaa 5 bilood macallin koox macallimiina ay markaasi buugga eegtay oo markii ay ka weyday wax copyright ah bay raatay buug kale ka soo qaatay ay markaasi waxa weeye buuggii fasaxeen ama buuggii aan shirkadda u gudbin karo marka taas ay ugu la yaabka badnayda waddankeeda Soomaaliya ma jirin waxa loo yaqaan copyright oo hiba right oo macallin cid kasta ka sheegarayn karta oo buugga eegi karta oo buugga yahay buug kale laga soo sawirtay iyo in kale marka taas marka ugu la yaabka badnay okay marka waxaad leedahay waa barnaamij dhan oo isku xiran oo buugaagto dhan bay hayaan dadkani hal buug hadii aad u ekaato waxa weeye ama waa lagu ganaaxayaa ama waa laga joojinayaa qoraalkii hal buug iska badaya hal page hadii aad u ekaato page-ka waad ka saaraysaa hadii kale ganax bal maraysaa iyo buugga waa laga kansalaya gidigiisa okay ما شاء الله تبارك الله والله وارن aad iyo aad u la yaab badan weey barnaamijka guntiisa gabagabadiisa colaado dadka waxaan weydiinaa inta badan nahna dhalinyarta Yurub joogta ama khaasatan imika barnaamijkan wuxuu qusayaad muddo Jarmalka maxaad kula talin lahayd maadaama way aragna tahay quraana aad tahay buug qoray oo loo baahan yahay maxaad tala ahaan u soo jeedin lahayd ما شاء الله horta marka ugu horeysa Soomaalida joogta Jarmalka waxaan kula talinayaa marka ugu horeysa horta inay iska daayaan shayga loo yaqaano xaasinimada macna xaasin wax kala maaha inay macna haday arkaan qof walaalkooda markaas xabi ku jiro waa inay garab istaagaan maaha qofkaas inay jibiyaan oo macna qofka yiraahdo waxaan ma qaban kartid waxa loo baahan yahay inay marka ugu horeysa ay wax kasta Soomaaliya u soonaado buug macna waba shay la qorayo maanta waxa la gaaray heer bayxi la tago oo la kaxaysto dayax gacmeed wax kastana waxa lagu gaaray waxa weeye waa iskaashi iyo markaas in gacmaha la isqabsado marka waxaan leeyahay Soomaalida heer kasta way gaari kartaan Jarmalka aragnay waxa weeye hadii aad qof kasta oo daacad noqdo walaalkiisa si daacad ah uu talaan u soo dawtana uu tala fiican siiyo naftiisana uu markaas waxa weeye uu horumar la doono oo qof kasta oo hami ku jirana uu hamigiisa ku taageero oo dhiiri geliyo waxaan hubaa markaas qof kasta oo markaas Soomaaliya inuu heer gaariyo marka mustaqbalkana inuu heerina markaas bulsho inaga naga si wanaagsan boo markaas hadhow toole meel kasta oo dawladda markaas ku jirto ma sha Allah midda kale barnaamij kale ayaa jiro hooyooyinka iyagana insha Allah hadhow leeyahay qayb waxa jirta oo iskaybiga oo online lagu baro hooyooyinka taana insha Allah waan ugu bishaareynaya qofkii markaa inta faraha badan waxa uu barnaamijka waliba uu khaas u yahay hooyooyinka maadaama yihiin kuwa ugu nugul badanaa u baahan markaas in la garab qabto ubadkii iyo xaaladoodii markaa badanaa gacanta ku haya kuwaasaan badanaa garab siinaa oo weliba wax weeye qaybta online aan ku barnaa waxbarashada 3 habeen oo markaas min 3 saac iyo min 2 saac iyo bar marka taas insha Allah waan ugu bishaareynaya hadii la yiraahdo ما شاء الله marka Skype-ka ayaad waxaad ka wadaa barnaamij ee hooyooyinka ma garanaysaa inaad ugu faa'iideysid insha Allah waan noo soo gudbin doontaa Skype-kaaga magaciisa iyo telefoonadaada iyo meesha dadku kala soo xiriirayaan xayisiis baan u sameyn doonaa sida aad sheegtay anagu sida runta waxaan kugu garab taaganahay inaan ku duceyno barnaamijyada aanu share gareyno hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo arintan aad sheegay sida Skype-ka aan ku ma garanaysaa bandhigno walaalaha Soomaaliyeed rag iyo dumar kuwana dhageysanaya iyo kuwana dhageysan doonaba iyagana waxaan kula dardaarmaynaa sidoo walaalkuba sheegay inay ma garanaysaa dadka qofkii isagu horumar wada la garab istaago ma garanaysaa dhiirigelin loo sameeyo luqadda Jarmalka colaado dad badan baa ka cawdo oo yiraahdo way adag tahay luqadda Jarmalku maxaad tala ahaan ku siin lahayd adigoo soo koobaya ما شاء الله horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay Soomaalida hadii uu qofku yiraahdo waxaan uu adeeg yahay weligiiba ku adkaada laakiin waxa loo baahan yahay inuu qofku uu maro macnaheedu jidkii loo baahnaa tusaalahaan oo kale imika hadii qof hadii laba qof tukaan tagayaan midna uu ka soo wareego wado ilaa 1 kiiloomitir midna wado toos oo tukaan galayso uu tago dawe kala dhawii tukaankiina waxa weeye kii wado toos oo marin baa galaya taa waxaan ka wadaa marka ugu horeysa Soomaalidu waa inay isku dayaan
inay macnihii luqadda systemka ay leedahay qofku inuu ku baran karo inuu ku barto marka ugu horeysa qofku inuu barto waxa weeye jaranjaradii kadibna qofku inuu macnihii tallaabo luqadii u baran karo marka waxaan leeyahay luqadda waa la baran karaa mana adka qof kastaaba ha isku daya marka hore inuu jeclaado oo waqti uu siiyo maxaa yeele qofku wuxuu jeclaado waqti buu siiyaa marka waxaan leeyahay isku daya halkii aad ku buuxin lahaydeen maqaxyo la fariistay iyo dubnad la ciyaaro iyo wax kale lagu mashquulo inaad macnihii xilligaad jaanis heshaan kasoo cibaadada iyo markaasi waajibaadkeena kasoo kow inaad insha allah aad macnihii inta waqtiga noo soo hara inaad insha allah samaysataan markaasi waxa weeye jadwal aad markaasi luqadii aad insha allah maalinba in muhiima aad insha allah ku diyaariso waxaana hubaa qof kastaaba inuu markaasi luqadda si dhigan ku baran karo weliba muddo sanad iyo 6 bilooda haddii qofku waqti uu geliyo insha allah marka waxaad leedahay waqtigiina ka faa'iideysta waqtigiina ha beerdaranina waqtiga aad heshaan firaaqada ah waxaad leedahay wax geliya sida luuqada oo kale inaad barataan ma sha Allah taas weeyaa ma sha Allah sax waxa ina weydiinayaan walaalaha qaar ay ku leeyihiin luuqada Jarmalka ma lagu baran karaa goobaha shaqada ama meelaha la shaqeeyo laga shaqeeyo dadku isugu kulmayaan Jarmalkii iyo ajaanibkii cid walba joogto luqadda Jarmalka runtii waa luqad aad u ballaaran waxa laga yaabaa qofka hadduu ka shaqeynayo hotel oo kale inuu barto kaliya intii hotelka macnihii adigu dee luqadda khaasatan intii hotelka iyo arrimihiisa khuseysay hadduu qofku ka shaqeynayo shirkadaha waaweyn markaasi waxa weeye wax soo saarkana qofku kaliya inuu barto luqadda intii wax soo saarka iyo shirkadda arrimaheeda khuseysay laakiin qofku waxa laga doonayaa meel kastaba qofku inuu galo hadday noqoto meelaha sportiga mid lagu ciyaarayo hadduu macnihii tahay inuu TV-ga qofku daawado laakiin meelahan macnihii isku badanaa shaqooyinka qof kasta shaqada ku shaqeynaya wixii khuseeyan buu baranayaa luqadii oo dhammaystiran ma baran karo laakiin waa inuu isagu isbaraayintii kasoo hadhay oo uu hadday YouTube tahay yaa qaybta markaa TV-ga waa inuu isagu waqti kale u samaystaa ما شاء الله إمك يوتيوب كان قراءة صهاد القاضية لذا يوتيوب كهلا برتو لغتها بدن ودنا ذا كلام نوع لقاه لا سيدا عربية إنجليزي دا الله المستعان إسبانيول ككل يجو دوج لغة ترجمية لقاه لا تطبع أوكعي السحل القاوي مقارنة سعرنتها تدخل ذيك حقبتري مركا إنه قدين الصوماليين لكن وحنا ورنا والوش قيسنا يا أيو لايك بالغور هذين يا أيو كمان بالغور هذين يا أيو فيوس بالغور هذين يا أرمنا عاصو كلا أيين أنت بدن لنا ولبنا تدخل الصومالي ذا ما وضعها إن بدنا في عم بكوتشرته وحأقول بدن أنت حاجة إسبيد السينة اللغة يربرتين أو وحيرة فهمين مركا يوتيوب كلا ما إسلا هاي مستقبل كمكوتشرة واحد كوف فكرة سد إن سوق السد سدا يدا وتحن ما دام بوجي قرطة وحي يكون ديرسيهين أو فيديو يكلا جوجانو 10 دي أتكون شرحها يسو سيدي ABCD دي أدمر شرحها يسو مرة شرحها يسو مقرن ساي داي مقرن ساي دي دس شرحها يسو مرة شرحها يسو أكوسو تفكي يو من نومن تفكي يو وحيا مسلا ده سيدا أو دتك سومالنا أد وقف يدي سلنا هين ما شاء الله وحوي كهر أنتي أنا بوجا صارين بوجو ولو السفري أنا يوتيوب كاتني marka YouTube ka imika muddo adigu wuxuu socdaa imika afalaya sana adigu la raba sana gaari faanfalaya marka way jiraan ilaa 100 iyo 120 baa ku jira oo ma sha Allah waxa weey nooc kasta leh oo waliba aad iyo aad imika waxaan filayaa waxa ku xiran 5,000 oo Soomaaliya ku xiran oo marka channelka jooga YouTube ka ku xiran oo ma sha Allah soo kale xitaa waxa jira xitaa YouTube kale oo iyaguna soo geliyaan inama kale marka iyaguna channelka jooga oo ma sha Allah iyaguna grammaticalka haduu yahay nooc kasta soo geliya marka waxa oran kara waxa weey sanadkan YouTube-ka Soomaali doonaya afka channelka inuu barto waxa weey maanta ugu fiican yahay intaas oo channel baa jira kayga iyo dhowr kale jiro iyaguna ma sha Allah waxa weey ama soo koobi karin oo qofku ka helayo nooc kasta uu doonayo grammaticalka wala sheegay wax kasta marka YouTube channel-kaaga maxaa ku qoran YouTube channel kay waxa weey marka hore kan lahaay weynaaye ay ku xirnaayeen 5,000 qof waxoogaa cilada soo gashay kadib waxaan ku wareegay mid cusub kan cusub aan ku wareegay waxa ku qoran barashada afka Jarmalka marka sawirkayga saaran aniga iyo waxa saaran inama kale ma saxaafta sawirkayga saaran halkaas inuu qofku ka heli karaa moogtay marka waxa ku qoran barashada afka Jarmalka haduu ku qoro qofka YouTube-ka sawirkaaguna uu saaran yahay wuxuuna ka helayaa 10 ku diyaarsan halka aad ku diyaarisay عشرة بدن بوكير إنك استيل كيران دور channel أو اسكو مقعو أيو صوب بحيان دور channel لكن انت ضو كهيريا كيغانا معني سوى كاسم بصارنا وحوي 10 بدن بوكير يعني سوكو بشرين يعني 10 الله يسلم معني مرسو دايو لا ساعدي برسو عنيو
ما شاء الله أنا سوكو بكريم كدوحة ما شاء الله colaada dadka qaar ba waxay aaminsan yihiin iyagoo wadanka Jarmalka ku nool inayna u baahneen bal luqadda Jarmalka shaqana ay haystaan oo shaqadoodu ama ha u haato shaqo festi ah oo la qaatay qofkii oo waligiiba ka shaqeynayo intuu nool yahay ama ha u haato shaqo ma garanaysaay waqti cayiman leh waxay aaminsan yihiin haddaad shaqadana fahanto meeshii aad u shaqo tagaysana aad garatid inaad luqadda Jarmalka aadan u baahneen kuwa noocaas maxaad kula talin lahayd iyaga runtii talaha waxaan siin lahaa luqaddu waxa weeye waa isafgarasho waxa lagu maamulahaa xooluhuna urta isku gartaan bilaaadmiguna waxay isku fahmaan hadalka marka waxa weeye hadalkii wadankii aan joogno haddaynu macnihii fahmi weyno luqadiisa aynu baran weyno hadhow dhib baynu ku dhacaynaayo waxa weeye waa muhiim luqadda in la barto ama qofku ha shaqeeyo oo shaqo xitaa isagu isku leeyahay ha abuurto ama qofku waxa weeye sida qofku lacag bixitaa haystee luqaddu waa waajib waana muhiim qof kastaana ha bartaan le insha allah taas waa qofka gooyaan okay khayr allah ku sii marka waxaad leedahay qofku waa muhiim bay ku tahay luqadda inuu barto si ummadana isku dhex fahmaan isu fahmaan isagana uu ma garanaysaay wax u fahmo una qabsan karo waka ma sha Allah sax weeyaan saas weeyaan colaadow magaalada aad ku nooshahay maadaama luqadii Jarmalka si fiican u baratay khayr allah ku siiyo walaalaha Soomaalida sida khaasatan dumarka ciyaalka haysta ee kaligood nool hooyooyin kaligood nool ama dadka dhibaataysan ama ha yaraado qofka ama ha weynaado ma isku daydaa waqtigaaga firaaqada inaad wax ka siisid oo dar ilaahay aad ku caawisid ما شاء الله waxa kulli waa su'aal aad u qurux badan runtii magaalada joogo Soomaalida joogtaa in faraha badan waxa jira kulli dhowr qoys baa jira dhowr qoysna aad bay ugu yarfugiin inta faraha badan waxa weeye magaalada joogo Soomaalida aad bay ugu yar tahay oo ilaa waxa joogan filaya dhowr iyo 10 qof oo Soomaaliya waxay u farabadayeen dhalinyaro iyagu markaa muddo iyagu ilaa waxa filayaa waqti hore joogay markaa jaanis markaa runtii faraha badan waa jecelahay marka inuu faa'iideeyo laakiin ma jirto runtii cid maanta aan istiraado waxa weeye maanta waxa meel ugu haastay helaysayo jaanis aad siin kartaa inaad ugu faa'iideyso maxaa yeelay waa waxay u badan yihiin dad shaqeeya oo badanaa waxa weeye warshadaha caadiga ka shaqeysta oo xilliga ay ka soo rawaxaana waxa weeye dee qof daalan weeyaan oo isku seexanaya badanaa markaa jaanis badanaa waxa weeye iguma helaan cid kale oo faa'iideeyo waxa weeye badanaa YouTube-ka iyo online-ka inuu faa'iideeyo intaas ma jaanis helay inta kale markaas ii dhow insha Allah mustaqbalka haday soo galaan qoys cusub waxa markaas waajib igu ah in insha Allah hadii la raajo jaanis aan u sameeyo ma sha Allah wana jecelahay markasta in insha Allah aan u faa'iideeyo qof kasta oo diyaara guntii gabagabadii iyo barnaamijkii buugan sida runta walaalku wuxuu sheegay buugan af Soomaaliga ku qoran iyo Jarmalka la isku qoray adigu isbar macallin la'aan oo magaciisa walaalku u bixiyay wala soo daabacay waa diyaar weeye website-ka shirkadda linkiga waan soo gelin doonaa insha Allah billahi karim saad linkiga aad u raacdaan live-ka dushiisa ayaan hadhow ku soo dulqori doonaa marka aan ka baxno hadii Ilaahay ka raali noqdo waa diyaar weeye buugii website-kooda waa laga helayaa shirkaddii daabacday buugga suuqyadana wuxuu sheegay walaalku ilaa jimcaha ama isbuuca dambe bilowgiisa ama Amazon-ka kale in laga heli doono hadii Ilaahay la soo gelin doono su'aashaas ayaa ugu badan baan filayaa su'aashu dadkana weydiinayaan buugga qiimihiisu waa 9 euro weeye laba buug oo isku jira weeye modelka koobaad ee bilowgii hore luqadda ah iyo modelkii labaad oo Artspy ah oo luqadda ma garanaysa ah waa laba buug oo isku jira oo waliba afka Soomaaliga lagu qoray walaalaha waxaan leeyahay habaqaylina qiimihiisu ma badna 40 euro waxba ma aha waxyaabo kale oo fara badan bay idinkaga baxdaa si aad ma garanaysaa buugana uu suuqa uga bixin iibsada walaalkiin u heeliya idinkuna ka faa'iideysta ayaan leeyahay walaalkana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waanu ma garanaysaa u mahad celinaynaa ma garanaysaa walaalkiin colaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankiisa xasanaadka Allah u saaro wax badan oo ummadda Soomaalida Jarmalka ku nool u baahnayeen ayuu qabtay baan leeyahay hore u sii soco waanu ku dhiirigelinaynaa annaga ku garab taagan inta yadu sida xun wax u arkaysa iyadana waxaan leenahay waa il kaliya haddaad wax ku arkayseen isha kalena bal fura ugu yaraan bal konton ha noqoto oo kontonna wax wanaagsan ku arka kontonna ma garanaysaa dee xoogaan waxa wanaagsan ku arka ayaan leenahay laakiin hal il kaliya hadday furnaato waa mushaakilkeeda ayay leedahay hore u soco ayaan ku leenahay waanu ku soo dhaweynaynaa
walaalahana meel kasta oo joogtaan waxaan idin leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad ka baqataan amuurihiin oo dhan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala idin yasirayaa kuna xidhnaada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka maalinta yawm alqiyaame waxa ugu horeeya laga xisaabinayo waa as-salaah way nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu leeyahay salaadu qofka haddii hagaagto ilaahay subxaanahu wa tacaala amuurihiisa kale dhan wuu hagaajinaya laakiin haddii buuggiisa salaad laga waayo khuduuhu ayaa la odhanayaa fasalluuhu ila aljaxiim kaxeeya oo jaxiimo ku tuura ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta lagu amraya marka intaas ayaan idin leeyahay salaada hala adkeeyo Allah subxaanahu wa tacaala ha lagu xidhnaado horaha loo socdo hala dadaalo dadka dadaalayana hala garab istaago yaa la niyad jabinin ugu yaraan wax kale aad u qabato haddaad weydo waxaad ku tiraahdaa walaal waad wanaagsantahay hore u soco ku dheh laakiin niyadda ha ka jabinin baaraka allahu fiikum وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته